أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوتيوب channel ka daawanayso waa Xasan Nuur Afshaar Farnaan haddii aad ku cusub tahay soo dhawow baan ku leeyahay. maanta waxaan doonayaa in aan halkan kusoo gudbiyo fariintaas oo u dirayo qof walba Soomaali ama YouTuber Soomaaliyeed. qof kasta Soomaali ah ama YouTuber Soomaaliyeed. fariintaas hore waan soo sameeyay laakiin codkayga ayaa saaid slow ahay. marka haddaan doonayaa inaan si nadiif ah kusoo gudbiyo videogaas asxaabta qaar oo maadaama ay soo sheegteen waad ku mahadsantihiin. marka fariintan waxay ka kooban tahay qodobo iska yar. qodobka koowaad, YouTuberada cusub maxay ku hamiyaan in ay gaaraan. qodobka labaad, YouTuberada caanka ah mar walbo ma dhiirigeliyaan YouTuberada cusub. qodobka saddexaad, qiimaha uu loofka u leeyahay YouTuberka cusub ama qofka commentiga soo bixinaya adiga. qodobadaas iyo qodobo lamid ah in maanta aan doonayaa inaan halkan kusoo gudbiyo. haddii aan hormaro qodobka koowaad, YouTuberada Soomaaliyeed kasoo qaato kuwa caanka oo kale tusaale ahaan maanta waxaa kugu xiran kumanaan qofooda kugu xiran. kumanaankaas qof walba wuxuu jecel yahay inuu noqdo qofka ugu horeeya ee YouTube-kaaga kasoo muuqdo. hadafkiisa, rajadiisa iyo hamigiisa sababtoo doonaya inuu kusoo hormuuqdo dadkaasoo dhan inuu kusoo hormaro oo adiga iska kaabto comment ugu horeeya inuu noqdo aad dareento adiga dhiirigelisid qiimeysid. marka YouTuberada Soomaaliyeed kuwa caanka ah waxaan u sheegayaa loofka in uu qiimo weyn ka leeyahay agteena. sax, YouTuberada isbahto loofka qiimo ka leeyahay sababtoo ah comment-uu ka soo bixiyo ku soo hormar waqtiga ku soo horay wuxuu doonayaa intaas in aad u mahadcelisid. mahadcelin waa inaad u mahadcelisid aad aad waa mahadsan tahay. thank you for your much. taas oo farxa wallahi bilaa oo farxa. laakiin haddii maad soo dhaqso qofka koowaad noqdo comment ku soo qoray love isaan برينا waxaa isku dayaa sidoo kale inaan soo hormar laakiin da isaalweys maalmo kadib waa iska daynaa. hadda u badato oon ku fiirsanaa oo kaliya oon ku fiirsanaa waxaa soo dhigtay leelo socona commentiga dambe ma soo qoreen. laakiin badanaa commentiga qiimuhu leeyahay inaan inshaa maanta u baahan. wallahi bilaa commentiga kii loof qiimuhu leeyahay qiimahaas laakiin dadka qaar oo qayb qaarna ma qiimahaas waxaa fahmi kara qof YouTuber cusub ah. waa xaqiiq qofka YouTuber cusub ah qiimuhu loofka leeyahay waa okay. taas baan kuma sheegay. marka waxaan ka codsanayaa qof kasta oo YouTuber ah in oo qof kasta comment ka soo bixiyo oo comment fiican ku soo qoro in aad ku dadaashid inaad loof ku saarto. waa muhiimada koowaad ah maanta videoga u soo fadhiistay inaan ka hadlo. wallahi loofka qiimuhu leeyahay dadka qaar ma laakiin qofka loofka qiimuhu leeyahay. loofka maanta kasoo qaad tusaale oo kale videogaaga aan u soo hormar aniga waa ka comment-ka soo bixiyo loof ay saarto. taas waxay ii tahay dhiirigelin kasoo qaad qofka sodonaada ah comment-ka soo bixiyo comment-kiisa sodonaad loof ay saarto. biri maxaa iga filay qofka koowaad inaan noqdo isku day video markuu isoo dhasho markuu ku dhufana. wallahi loofka qiimo qaali oo ku leeyahay dadka YouTuberada cusub sababtoo ah badanaa YouTuberada cusub waa dadka YouTuberada caanka ah comment ka bixiyo. waa xaqiiq YouTuberada caanka dadka comment ka bixiyo waa YouTuberada cusub. taas awgeed la ajligeeda waa in aad ugu bedeshaa waqtiga ku huray comment qurux badan ka soo dhiib in aad loof ku saarto. maanta waa awoodaa kumanaan qof ee adigu fiirsanaa inaad loof faysiis. laakiin muhiimadaada hadday tahay dadka qaar waa sii kartaa. laakiin waxaa iga codsi loofkaas in aad siisaan qof kasta oo comment ka soo bixiyo. loofku waa dhiirigelin. wallahi waa dhiirigelin maanta loofa qofkan siis biri soo qad ama laga yaabo qof Soomaali YouTuber aan ahaatay loofaas screen oo ka qaadana. waa sax screen oo ka qaadana. taas beemo wallahi beemo sababtoo ay ugu faana asxaabtiisa ugu faana. waraniyow waxaa jira xataa asxaabo badan oo lagu ay magaca dadka caanka ah oo la dhaho hebel ka dambeeyay hebel taageertaan saas waa adiga magacaaga ayaan ka soo niidilaa. asigana heer oo wuxuu gaar adiga magaca la bax oo naanaas ka dhigto hebel markii dambe uu magacaas toos meel ula maro. maxaa ku kalif adiga ku kalif sababtoo ah jecel ku qabo ayuu magacaaga ula baxay. jecel ku qabo lagu afleeyay. marka waxaa iga codsi ah oo aan doonayaa halkan in aan muhiimadeeda ugu hadlo loofkaas in aan
noo saartaan ama aad u saarto qof kasta comment ka soo bixi ha ahaado youtuber ha ahaado qof caadi oo adigu ku taageero ku fiirsanayo taas waa iga codsi qodobkan labaad hadaa guda galo qodobkan labaad muhiimadiisa waxay tahay horta tan waa sirtaas oo aan ka sheegayo youtuberada cusub dii aad daawanayso youtuberada cusub ay wax ma saacido sirtan waxay tahay boqolkiiba 80 youtuberada cusub waxay fiirsadaan dadka caanka ah waxay commenti ka bixiyaan dadka caanka ah maalin kasta wuxuu rajeynayaa qofka youtuberka cusub ah inuu noqdo qof ugu horeeya adiga comment ka soo bixiyo wallahi taasoo rajeynaa anaa kamid ah taasoo rajeynaa in uu noqdo qof ugu horeeya comment ka soo bixiyo aad dhiirigelisid mar walba wuxuu ku fikiraa ama uu ku haminaa in aad adiga janaalkiisa soo booqanayso wallahi waa mar walba wuxuu ku fikiraa oo ku haminaa inaad janaalkiisa aad soo booqanayso ama aad qiimeynayso oo qadarinayso ama wuxuu u maleynaa in aad commenti wali shaqana badan qofka waxaan in sheegi lahaa youtuberada caanka ah mar walba youtuberka cusub wuxuu ku hamiyaa inuu adiga noqdo qof ugu horeeya ku daawado in uu noqdo qof ugu horeeya videogaaga comment ka soo bixiyo like hamigiis waa intaas hamigiis waxaa kaloo jira in uu hami ku leeyahay in aad adiga mar un janaalkiisa soo booqato waa xaqiiq mar un aad janaalkiisa soo booqato oo aragtid talentii iyo hibadu ilaahay iyo dadaalku asiga sameeyay wuxuu ku fikiray waxa kamid ah sidaas oo kale wuxuu mar walba soo ordaa comment soo bixina oo leeyahay walaal qaali saas waay walaal qaali oo taageera qiimo qaayb ku yeelay ku sharfay ku jecel wuxuu rajeynaa mar un janaalkiisa asigana in aad soo booqato oo aad dhiirigeliso hataa share out adoo san waxa ka badan comment adoo soo qorto wallahi billahi farxad duuniga markaas ilaa waa xaqiiq qolobada kale oo doonaya xawaayo youtuberada cusub waxaan u sheegayaa ama aan ku dhiirigelinayaa in ay hamigooda marnaba ka niyajabo hamiyo leeyahay rajo iyo rajo leeyahay hamigaaga rajadaada riyadaada horta social media markaas uu galay yaa kugu qasab cid qor ku qaadad ma jirto cid qasab ku dhahda video sameey ma jirto ما جرت عندكم وخسرت إن أد بتصور في أد فيديو إن أد لبدك أد جعلات فتحت جعلات أديك أباها إن أد ما يعيلت صحوة أديك أباها إن ما يعيلت سمعت بالشرف سديك هني كرتان مركب كوال هدف كاجا أد لا ده أديك إن مرنبا كان يجوا مركب لوان وحاجة بدن أو أديك كن يدلاه هاي هيول ميل وجاي من وليديس وأنت أصلاً دليل صوري ميل من جاي ساس وهو تتكاسن هوني جمع هو مستعين في رخوف كأدي كتابة قيمة وفي صدق وجعل كمتيل قرح البدن كوسو قرن فكاس دايما يدو لسه لكن هم جاي كتجدد هدية كل جمت والله ولي جاي غير مجالس ملاش دبتوين فربنا على كل مين حيال فربنا على صوت عليك إنه يوتيوب عشان بدأت تحوي قصة وبيسوي والله يوتيوب عشان بدأت تحوي إن عاد رجال هدف كذا عاد هيكستا وعاد بيكستا لكن هدي عاد هدي سوى دتك بحب رايح ده قالت عليه هرد دتك بحب ديرين صح واي دتك بحب شيء ده قالت هدف كذا رجال أكارت محكو شيء غفتا وحكو شيء مال والله وحكو شيء مال هدف كاي رجال هم جاي هذه أسجارتي وجالسي والله بالله مركب الرصاص سمي فيديو يخرج بدن سيدتك كودا بدن فيديو يخرج بدن كوبش عترة كوبو مركز وحياله تاجن صو سمي والله waa xaqiiq adoo cid bil aadan ah la hadlin oo bariyin ameel isgaarsiin kartaa laakiin hadii aad ku tashatid qof sharax sameeyay waxa isku dhiba youtube iska sameeyay ha marka hamiga iyo rajadaada hiiso marnaba qof madaxiisa hamigaaga ha ugu jabin waxa kale oo codsi aan halkan fariin weyn ugu dirayaa youtuberada Soomaaliyeed dhammaan in aad qofka comment ka soo bixinayo aad qiimeyso lofkiisa siiso
waa iga codsi videoga ma doonaa inaan ku dheeraado haddii aad khaladna ii fahantay hama bulsho waxaan in leeyahay sidaas iyo nabadgelyo laakiin waxaa iga codsiya in aad is caawisaan